بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan halkan ku duubi doonaa casharka soo quseeya how to create an Apple ID account ama sidee qofku u samaysan karaa ciwaan Apple ID ah si uu u isticmaalo mobilada iOS deviceska iyo computerka Mac OS ku duwan yahay Apple computer, iPhone, iPad iyo Apple computer intaba waad ku isticmaali kartaa. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay shuruudaha qofka haddii uu bixiyo oo Apple ID-ga samaysan karo. qofku marka koowaad uu haysto ciwaan email ah, ciwaankaasoo Gmail noqon kara, Hotmail noqon kara. ciwaankaasoo marka Gmail ah, haddii marka Gmail aad soo samaysato, Gmailkaas wuxuu kuu fududeynaya in Apple ID-ga samaysato. way jiraan habab kala duwan oo dadku u samaystaan sida inay isticmaalaan extension-ka ah .icloud.com, laakiin inta badan waxa u fiican @gmail.com. marka haddii iCloud aad samaysatay aad kuga adkaanaysaa inaad ciwaankaagii markaad passwordkeedoo kale aad raadiso, laakiin dadka Gmailka Apple ID-ga markay ku samaystaan waxay u fududaataa in markay ilaawaan iPhone-kooda Apple ID-ga ay ku samaysteen ama iPad ha noqdo ama wax kale ha noqdee, passwordka Apple ID-ga hadday ilaawaan inay forget si fudud dhihi karaan marka koodhka Gmail lagu dhici karo. marka koowaad waxaad samaysanaysaa Gmail, markaasaad Apple ID-ga samaysanaysaa. aniga already waa ii samaysan yahay Gmail cusub oo aan Apple ID u samayn. Gmailkaas ayaan marka soo furan doonaa, hadhow koodhka isagoo igu soo dhacaya, markaasaan Apple ID-ga samaysanaya. marka talaabooyinkan xagga shaashada computerkan ku wada soconaynaa. iminka waxaan soo furanayaa daaqadayda Gmailka si koodhka hadhow uu igu soo dhaco emailkayga. marka Gmailkayga mar haddii iminka aan dhex galay oo uu ii furan waxaan toos iskaga aadi doonaa, waxaan u gudbayaa daaqada Apple ID-ga laga samaysto. marka halkan Gmailka waxaan rabaa hadhow koodhka markay ii soo dirayaan ciwaanka inuu ii soo galo. marka adiguna sidaas la mida haddii aad mobile haysatid iPhone ah oo kale, waxaad samaysataa Gmail samayso. haddii markaa mobilkaaga Gmailka aadan ku samayn karin iPhone-ka ama iPad-kan, waxaad mobil kale ayaad Gmail kusii samaysan kartaa. mar haddii Gmailkaas aad mobilka ku samaysto inta aad processka Apple ID-ga samayntiisa ku jirtid, waad u baahanaysaa mobilkaas. marka anigu Gmailkayga hadda waa kan uu diyaarsan yahay, waxaan tegi doonaa Apple ID-ga meeshaan ka samaysanayo. appleid.com hadda haddii aan tago aan xagga sare internetkayga ku qoro appleid.com, waxaa la geenayaa ciwaankan aad aragtaan website-ka ay ku qoran tahay account.apple.com. markaad ciwaan Apple ID samaysanaysid waxaad soo gelaysaa www.account.apple.com. bartan sare marka waxaa kaaga muuqata halkan falaadha aan ku hayo create your Apple ID oo ah samayso Apple ID-gaaga. iyada ayaan ku dhufanayaa. marka kadib processka halkan aad ka aragtaan waa qofka waxay halkan oo kale laga weydiinayaa magacaaga labaad, magaca aabaha, wadankii, bishii iyo date-kii aad aragtaan, emailka ee Apple ID-ga RFC noqonayo iyo lambarkii passwordka. marka halkan ugu horeysa first name-ka ayaa waxaan ku qori doonaa Ibrahim Usman ayaan ku qortay. halkan marka wadanka waxaan raadinayaa Soomaaliya ayaan baaranaya. way jiraan wadamo kale lagu sameeyo, laakiin iminka waxaan ku samaysanaynaa wadanka Soomaaliya maadaama lambarkeenu yahay lambar Soomaaliya laynagu soo diray koodhka. sidaas aan u samaystay 2002. marka Gmailkaygii iyo waxaan soo afjinayaa ciwaanka Apple ID wuxuu noqon rabo. marka Gmailkayga halkan haddaan idinka tuso wuxuu u samaysan yahay qaabka oo ay ugu qoran eng@gmail.com. marka saasaan ka dhiganayaa Apple ID-ga. waxaan leeyahay eng@gmail.com. intaasaan qoranayaa. passwordka marka waxaan ka dhigan doonaa halkan waan idinka tusay. okay, lambarka marka halkan aan gashanaya lambarkayga caadiga ayaan gashan doonaa dabcan 493 taasaan gashanaya. lambarkayga aan geliyey. text message miyaa koodhka lagu soo diray mise wicitaan? text message-ka ku fiican. hadda kuwan oo kale waxa weeyaan in waxyaabihii cusub ee Apple ay soo kordhiyaan in notification ay ku soo diraan, waana iska qaadi kartaa, waana deysan kartaa. markaan mar wayna bashqadayga la daalaane waa halkan aan iska gelin doonaa. waxyaay sameeyaan oo dhaba ku soo gelaya. marka security-ga halkan qoran sidiisaad u gelinaysaa, marba way bedbedelaan. marka suu yahay waa sa iyo ta waaweyn, number 3 iyo ga ku xigta ST3G. marka hore u socon lahayd processkayga hore u socon lahayd. marka imika saad aragtaan waxaan weydiinayaa emailkeeni Gmailka koodhka lagu diray. Gmailka already way diyaarsan yahay, daaqadan kale ayaan soo gelayaa. waa kan verify your Apple ID account, isaga ayaan soo geli doonaa. Apple ID-ga halkan ayaan ka soo gelayaa insha Allah. waa kan koodhkan ayaan ku beysanayaa. waxaan gashanayaa Apple ID-ga meesha layga weydiinaya koodhka. kadib waxaan leedahay continue. markan wuxuu weydiinayaa verification code lagu soo diray. nambarkayga ayuu weydiinayaa koodhkii kale. isna waa kan
continue ayaan markaa leeyahay isna hore u soco oo kan sidaas ayuu markaa ku samaysan yahay Apple ID-gan. Muuqaalkan waxaan kusoo koobayaa intaas processkiisu keliya waxa uu ahaa sidee ku samaysan kartaa ciwaan Apple ID ah. Muuqaalkan muuqaal xigeentan ugu iman doono waxaan kaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.